nin saaxiibkayga reer afgooye aan isla ahayn ee Thomson la yiraahdo oo cid ka tirsan ayaa berigii USC loo karkaraysana soo gashay ayaa nin 80 jir oo qori daba jeex wato ayuu arkay waana afgooye meesha Thomson waa nin dhib badan oo sheeko badan oo marka xaafada ah markaas wuxuu war sheekhow ani waxaan ku weydiiyay qori daba jeexaba wadataaye oo silsiladiisa laftirkiisa dhulka jiidayso maxaa bamba faalkaan haddana aad wadataa oo bastooladan ku xiran intaan oo dhan eegaanka badan maxaad u sidataa markaas warya horta wax ma ku weydiiyaa adigu yaa tahay markaas ani sheekhalanahay warya haddaan ku fiiriyay aan ku eegay iga wallahi billahi ku nimanka ragga ah ee mudug ku dhashay inaadan ahayn ma ku wadaadada ah ee koonfur ku dhashay halkan ee culimada iyo waxa iyo ma ku asaatahay warya wax ma ku sheegaa uu yiri dagaalkii godogoday 12 ilma adeertayda lagu dilay haye dagaalkii cagadhig ma garanaysaa 15 ilma habreed annahay iyo awowahayga iyo ku jiraan kuwa aniga ma artay ilma ma artay annahay baa meesha lagu dilay haye dagaalkii geeli in dhayar lagu qaaday mataqaan inta soo halaad iyo intaas geel baan laga waa yaab 10 markuu maray ay warshaxu sug كودي وكا قردنا عيلة قبتاي اسكررنا عيلة قبتاي وكسنو marka nimanka reer mudug anaga waa ogtahay wax badan ay naga qoreen laakiin wax badan waa laga wariyay hadda waxa way dhaqankii Soomaaliyeed waa daba taaganahay maxaa yeelay reer mudug waxa la yiri saddex wiil u dhalay markaas waxa la yiri war hay maxaa ilaahay awlaad uu ku sii wuxuu yiri saddex van ilaahay isii uu yiri haye وعيري لبا ورقة يوم يتحمر كل شيء كونفور بدت مكسوجري إلهي أمريكيس يا أمريكا أنا إسكو ورسلنا هاي نمكا ولا لهنا رنود مدوك أشلي يعني شيكين أي أميل مناسبة ده نعيب أن وقف معه لكن إن دقن كود أمبرون بركة حتى دبيعة هذه الأسبوع ماذا نكان ودبيعة دي سئل يراد الروا مقتاي على يرنير المدوقة وحال يري ولا الكيس ورني ودا إلهي كعب ستت وحقاير فقري بلاي وكعب هذا ولا الكلن والذين هاي وأنت سو إلهي عليسك كعادة عبادة إسرائيل وبضع دكو مركز وحيري هدان دكادو أنا نفترض كي وأكون سعيدة وري تقال أنت لا دونا كسينا يا مساس بها لكن وإن أفرتن إيشن جماعة هذا التكرها نكان هاي واي هداي ساعة هاي بعدين حوالي سلاك بهليو أفرتن إيشن جماعة أيالتو كذي نكان مركي قدام بيسي مركي تي أفرتن إيشنات أوتو كذي ولا الكيس ويمدو حير هاي ولا أنتي وكسر بحي واي ما حد سمع يسي شن إيه أفرتن كيبو ومدتو كذي جماعة والتو كذي إن أقدر هدي واحد إيه يسيتسي مركز وحير ونيو أنا حولكم هاي لكن إن الإلهي كحرنته وعباديسته الدنيا آخرة وأكل في عين آخرة إن هجاجسته أيام كوسي يوير ثلاثة ما أنا أول بكو قرن وير إن السير يسوان وكاوير لكن ما حيكون ترسنت وير هذا أنا أفرتن إشان تكو أو صلاة أو جماعة تكو أو أدي قتري أو أدي إجاب بحدي مركان تكو أدي كذب أدنو واحد أو تاوير أو أدي سرتي أنا أفرتن إشان طب إن وي صلاة أنتو كذي أدي نقول نلا سير كارين أنا الحين أمريكا وحواي dadkaasi waa dad iska barakaysan waxa waaye ilaahay ayagana dhaqankooda ma aragtay dhaqanka ee naxariista ku salaysan inuu noo noqdo waa jecelnahay laakiin Soomaalidu dhaqanka isfahamka xaqiisa wax badan in sida sheekha uu sheegay in laga toosiyo maxaa yeelay sheekha waa nin lugawi ah culumta linguistikada iyo anthropology-ga iyo ma aragtay wax badan oo dhaqanka iyo hidaha iyo dadka sida ayaga ay u baahan yihiin isku fahmaan wax badan ayay ka qaadan karaan qayb Soomaalina meesha iska fahmi kari la adhay waa dhaqanka maxaa yeelay anaka dadka meeshaan joogo hadda kulli waama iyo koonfur iyo kulli ayaa la soo wada soocay abka ab Sheekh Cabdixay adoogiisa joogo sheekhayna hadda anaga hadii in yar hadda xoogaa ay dhaco culimadeen haday soo baxaan wax allaala waxayna yiraahdaan horaan ka qaadanayna hadduu yiraahdo sidaan idin go'aaminay aniga maanta deegaankayga
kulli waxa waaye beeraha xataa hidda iyo dhaqan waxaan u lahayn haddeenan iyaga fasaxin ma la taaban jirin ninna ma aadi jirin mana soo goosan jirin ilaa wax weliba yah shiikha uu ka soo idmo marka waxa waaye haddii qof xataa lagaa dilo hadduu isaga camaamada ku saaro faatixadana maraad leedahay maxaa yeele dhaqankayna ayaa ah faatixa ku dhashe faatixa madiido faatixa ku dhashe faatixa madiido xagga haddaa tagtid nimaan aarsan uur hoyadiisuu ku jira nimaanan warankaada karin warkaada ma karo marka nin u dhaarsan maaragtay inuu wax kala jabiyo oo hadda sheekha sida uu sheegayay nin dilaa inuusan noqonin dhaqanka ay ka soo jeedo gabadha ee dadka ay ku abtirsanayso iyo waxayda ay samaynayso oo kulli wuxuu na tusaalaynayay inay noqdaan qoyska ee gabadha ama wiilka ay ka imaanayaan dad maliix ah oo wanaagsan oo aanan dagaal iyo rabsha iyo buuq iyo saamayn aanan ku yeelanin waxa taasi loo leeyahayna waxaa waaye rasuulka sala allahu calayh wasalam culimadayda joogto hayga raalli ahaato iyaakum waddimna alkhadraa soo ma ahayn sheekhi iska ilaaliya addimna alkhadraa waxa waaye dibna alkhadraa oo lagu fasiray albint alxasnaau fi lmamati su gabadha waxaa la yidhi meelaha cooska ka soo baxa meelaha bulaacadaha iyo ya yacni iska ilaaliya gabadhii baa marka waxaa la yidhaahdaa haddaanan ayada aanan jirin ma aragtay dad ka dambeeya oo wan wanaagsan way saamaynayaan mudanayaal saa u wada dhantihiin guurka qiimaha uu leeyahay umalayn maayo intuu sheekha uu sheegay wax ka badan diiniyan inaan maanta wax ku dari karo sheekh cabdillaahi waama ayaa markuu soo joogsaday wuxuu yidhi hal libaha arkaysa ma godlato haddii meel sheekh qutubi iyo doctor dasuuqi ay fadhiyaan caalimiintaydii ahaa labadoodana haddii aan midba midka kale aan u xuso sida sheekha uu sheegay markaan takhasuska master degree aan samaynayay suudaan sheekheenii nagu soo dhaweeyey buu ahaa haddaan idinkaga warramo habeenada ka mid ah tii ugu badnayd ee ay dhacday ee taariikhda suudaan asiga uu noo reebay ayaa waxay ahayd nin suudaani u dhashay oo caan ah oo qora ah axmed markii la yidhaahdo ayaa iyadoo looga hadlayo taariikhaha ma aragtay soomaaliya ay ku jirto dalal ka mid ah ayaa wuxuu isku soo qoray mawduuca inuu soomaaliya uga hadlo markaasaa naloo keenayaa la yidhi caawa munaasabadda waxaa ku qoran mawduuca soomaaliya doctor axmed maki inuu ka hadlo markaasaa la yidhi nama qabato mana dhici karto mana dhacayso sheekha asigoo na hogaaminaya sheekh qutubi ayaan habeenkii macal safaaradda ayaan meesha tagnay isagaana aan u wakiilinay inuu soomaaliya u hadlo hal sac ayuu hadlayey in soomaaliya dad loo hadlo aanan ahayn wuxuu soo diyaarsaday iyo taariikhdii rabay inuu meesha ugu yara taataabto mid ilaa iyo alif ilaa iya ayuu ka hadlay macallimiintii wax noo dhigaysay ee dakaatirada ahaa ee suudaan waxay yidhaahdeen ma dad loo hadlaa dadka saan u hadlayo maxay axmed ku keentay soomaaliyaan u hadlaa inaad tirahdid ayagoo sheekh qutubi iyo raggan maanta ay joogaan ayagana macallimiintii ayay ahaayeen waxay ka sii daba qaateen ayagoo ku faanayo sheekheenna iyo inta ayaga maanta ee ayaga ay garanayaan ee soomaali dad loo hadlo inayan ahayn ee dad iyaga inay ku hadlaan ay mudan yihiin marka shiikha runtii ilaahay ha dhowro magaca iyo qiimaha soomaaliya uu ku leeyahay haddaan xataa laftirkayga kaftana idinkugu daro maalina wuxuu yidhi dalxa inaad cod macaan tahay yaanan arkay yaan lagu wareerinina marmarka qaar dadaa waxay adiga yidhaahdaan fanku meelo kulli dhinaca xunay raaciyanayaan markaasuu yidhi heesaha iyo qasiidadaha codkaagu waa fiican yahay waxa waaye waxa ay xoogaa khaliica intaad dhaaftid inta kale hurguf uu yidhi hurguf waa marka aan ku dhiiraday inaan heesta aan ku celceliyo waa 15 jir shiikh waani dhalay sharta laga daboolo laga naari shaydaan ma gartay ruuxa sheekha markaa fiirisidna ma aha sheekha dhinaca kaliya xataa fanka marmarka qaar adabka xaqiisa waxa waa ku leexdaa marka aad baan ugu faanaynaa doctor dasuuqi kuliyadda luqadaha ayaan markii dambe assistant ka ahaa ayadaana ka soo baxay takhasuskayga markaan soo dhamaystanay macallin buuxaan ka noqday
dadkii wax naga soo saaray ardada Soomaaliyeed ee maanta wax badan ee aad arkaysaan mas'uuliyiinta dawladda qaarkood ku jiro Yusuf Garaad iyo ayaa kamid ah Bukhari ayaa kamid ah ma gartay rag badan oo kuliyada afafka ka tirsan oo magac weyn ku leh Dr. Dasuuqi dadkii wax ka soo saaray buu ahaa macallimiin dibadda ay ka yimaadaan ee ay qabtaan seminar oo ka socda ma aragtay runtii ka socdaan jaamacado oo dunida muslimka ahne wuxuu ahaa ragii noo keenay oo annaga aan ku indha furanay oo wax badan laga faa'iideystay marka Dr. Dasuuqina hadda dhakhtar kaliya oo malaynayna inuu yahay macallinimadiisana iyo sheekhnimada wax badan oo isku darsaday isagana ogaada mudanayaal iyo marwooyin arooska qiimaha uu leeyahay sheekh haddii xaq diini ooga hadlay xataa gabdhihii Soomaaliyeed maray dhalinyaradan ee hadda inta badan lagala hadlayo inay guurka xaqiisa ayaga ay dhiirigelin fiican ay ku yeeshaan oo basida xadiidkii uu leeyahay ya mahshar ash-shabaab man istataa'a minkum al-ba'a falyatazawwaj ninkiiba awoodo maharka iska bixiyo oo sheekhan hadda u kala dhigay mar allaala markii dhaqanka Soomaaliyeed la sameeynayo niman reer guura oo aniga laftirkayga aan aad baryahan dambe dhaqankooda aan u dabagalay ayaa waxay la soo boodayaan waa inaan intaasoo faras u lahaa gabadh laga bixiyaa waa intaasoo geel laga bixiyaa waa in intaasoo kaa laga yeelaa sheekh hadda geel dhan ma soo qaadin ilaa aakhirtaankii ay noo keenaan haddaanan gabadha dabajeex laga bixinaynin la guursan maayo